مسؤولين كترسن دولة فدرالka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho uga qayb galay kulan loogu duceynayay Allah u naxariistay halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed marxuun Axmed Kayse oo dhawaan ku geeriyooday dalka Mareykanka. Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan loogu duceynayay Allah u naxariistay marxuun Axmed Kayse oo ka mid ahaa halgamayaasha Soomaaliyeed oo dhawaan ku geeriyooday dalka Mareykanka. goobta kulanka ducada ah ay ka dhaceysay waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya sida wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka wasaaradda warfaafinta, ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ahna mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. intii uu socday kulankan ducada ahayd waxaa madasha lagu soo bandhigay taariikh nololeedka Allah u naxariistay Axmed Kayse iyo kaalintii uu ku lahaa xornimada Soomaaliya imikan ay haysato. xubnaha goobta ku sugnaa ayaa eebo uga bariyay marxuun Axmed Kayse in naxariistii janno uu siiyo waxayna ummadda Soomaaliyeed ay kaga tacsiyeen geerida marxuunkaasi. halkan maanta waxaynu isugu nimid inaynu u duceyno marxuun Axmed Kayse Axmed Xaaji Ducaale oo runtii sida la sheegay dhawaan geeriyooday halgame ahaa marka taariikhdiisiina waa inoo ka sheekeeyay وانا للدعية وشيخي هالكن سوي استاجي وساردة كتير سنة الله خير هسي سيفي عن أو أيو الدعية يعني نكونا إن شاء الله تعالى كل جين وكقيم قادنا ودعينا مركب مناسبات دورته مهمة دي وفريني تاريخ دي سنة ولا قشيك تاريخ تاعون أحسن أولها وحانون ربائنا مركب ورئيس أمهات عليا وسير كي وساردة أريمها الدبدة ورنتي وقت في عن xusay xuskii ugu weynaa hadda intuu dhintay ducadan u sameeyay halkan gooshan noo sameeyay intayadaan soo kaaya yeeray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un kulligeen ilaahba ina leh isagaynu noqonaynaa mudane wasiir maareeye mudane محمد عمر ارتقالب xildhibaan golaha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka hore ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Axmed Maxamed Jaamac Ciro xildhibaanad Aamina Cumar xildhibaan Biixi Imaan ahna xogeeyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka xildhibaan Jaamac Askar waxaan rajeynayaa xildhibaanadana soo sharfay inaanan qaar ka hilmaaminaysa naga hoos bixin wada yaqaane guddiga odayaasha ambaashadoradii hore ambaashadorada kale hatoo hadda nala jooga diblomaasiyiinta halwadanada wasaaradda kulligiin waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idinka mahadnaqayaa fursadda tan ay nagala soo qayb galeen diyaarinta kulankan dadkii ka soo shaqeeyay aad bay ugu mahadsan yihiin dadka nagala soo qayb galay oo ay ugu horeeyaan xubnaha aan sheegay wasiirka iyo wasaare ku-xigeenka hore iyo xildhibaanadana aad ayaan ugu mahadnaqaynaa oo qadarinaynaa maxamed cumar artaqaalib isaga dee aabihiis halkaan ku qoran yahay oo wuxuu ka mid yahay bahda wasaaradda marka sharaf bay noo tahay inuu nogala soo qayb galo xafladda tan sharaf gaara ujeedadan isugu nimid waxaa ugu weyn saddex arrimood mid horta dhaqan bay inoo ahayd oo dadku waa dhimanayaan wasaaradda waxaa dhaqan inoo ahaa markii qof ina ka tirsan uu dhinto inaynu isu nimaadno xusno oo u ducayno halkan waxaynu ugu ducaynay hadda ka hor oo ku xusnay cabdiraxmaan caabi faarax oo isaguna ahaa cabdiraxiim caabi faarax oo diblomaad muwallica oo adduunka laga yaqaano Soomaali ahaa waxaynu ka xusnay maxaa la yiraahdaa
Alaabe aynu ka xusnay Suufi aynu ka xusnay diblomaasiyiin ina ka dhintay iyo hawlwadeenno marka taa dhaqankii bay ahayd aan sii wadayn oo dhaqan fiicana xusidaas waxay isugu jirtaa mid murugo iyo baroordiiq si Soomaalidu yiraahdaan iyo mid ah u dabaaldeg iyo xusid shaqadii fiicnayd maaragtay uu mas'uulkaasi uu dalka u lahaa